daawanaysan dugal media waxaan wareysaneynaa qofka adduunyada ugu taajirsan ugu lacagta badan madaxweynaha adduunkana ah kaas oo ah qof Soomaaliyeed nasiib wanaag anaga Soomaaliya maadaama qofkaas uu yahay qofka adduunyada ugu taajirsan ugu hantida badan sidoo kale madaxweynayaasha adduunka ay salaantu saaran mudana madaxweyne soo dhow bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala rasulillahil karim waad ku mahadsantiin hadaatiin dugal media exactly kaaso mostly laga wada daawado wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba arrinka aad sheegtay waxa weeye qof walba oo bini aadana waxyaabaha qaar markii loo sheegay aqligiisa ma qaadan karo laakiin xaqiiqiyan waxa jirto koonkan yaa maamulo iska leh الله يا بحث الدرجة الله exactly هذا من درجة الله ودرجة إله بحيه مد إسكيل يل بني آدم لقبر يا وحلو قبها هاي هذا يراتما صح سو مقرن صح وحنكوش يا تكنولوجيا العالم كسرعة ولا هذيك الشانل أتكجل ساتلايت أنا جاي يقول حرنت هذا كان صلوا ما سوق لي كرتي والله العظيم اوكي فيسبوك قال وحنا كوبا شالسن تكنولوجي دا اركيسان عدان ربان بلوغي كرا عدان ربان سيدين كرا وحنا انا اسكال تكنولوجي عين كستا اي نقطي wax kasta ay noqoto adduunka ya madaxweyneka laga soo ku wadaay adoorade adduunka ya madaxweyneka waan ku wadaa laga soo macnaha waxa way horta warku isma saarno warku in la kala dhigdhigo ku haboon yahay magta waxaan dhahay marka hore waxaan kugu soo qaaday ninkan marka hore wixii la soo bood wuxuu yiri ninka ugu taajirsan adduunyadu yiri waxay kamid tahay qaybaha ilaahay igu manaystay qayb kamida taasoo ah kan wax kasto caalamka oo socdo percentage wax la yiraahdo kullu aadiyad soo ma fahmin aadiyad nimanka Bill Gates waxa uu taqaanaan agteed waxa ka noqonaan kit wax la yiraahdo maxaa la dhahaa arur because ani trillions way dhaftay yaga billionaire way ani trillion exactly kasoo gudub madaxweynaha adduunka aniga doorasho